هاي هذا لو لنيا هاي ما شاء الله شيخ أبو كريم محمد ما قالوا لي كده عمتين أنا ملايين يا عبد الله ها أيه شيخية والله شيخية ولا سوزيات شيخية هاي شيخية ولا سوزيات إن شاء الله hooyooyinkan runtii waa hooyooyinkii aan had iyo jeer dhiirigelin jiray u ducayn jiray ubadkooda ku xiri jiray aan dhalinyarada ku dhihi jiray runtii baari ha loo noqdo maanta waxaan ku soo booqday waa Northeastern National Polytechnic weeyaan hooyooyinkan waxaa loo diyaarinayaa runtii qayb farsamooyinkii aan idin tusaynay ah qayb waxa waaye diyaarisa hilibka oodkac qayb hawl baa lagu jiraa runtii buuqaani qayladan yar qayb waxaa loo diyaarinayaa diyaarisa oodkaca ama nyeri waxa la yiraahdo luqadda Soomaaliga waa oodkaca weeyaan xataa eeg National Polytechnic Northeastern National Polytechnic waxay diyaarinaysaa hooyooyinka waxay u diyaarinaysaa ay wax u baraysaa wax waaye sidii hilbaha loo jari lahaa sidii oodkaca loo diyaarin lahaa يعني ماشان wax ay deysay haba yaraatee male meeshan waa meel runtii shaamil ah kaamil ah wax walba ay ugu tala gashay national government meeshan kala soo hadlayana waa Gaarisa weeyaan aad baan idin salaamaya ha muslim يا عادي عادي maxaa samaynaysaa جريري اللي قصوا قارا من عنده هاي سيدي برنامج جريري ماما جريرة اللي قنارة أنا قصة حاسب تعبك البيت سديت يتمسنا لما تنسنا جريري دول جرجريس عودك الله اكبر oo sii gadgadis وشي كده hooyadan waa tan ay leedahay ana la iga soo gaaray baalkay leedahay 20 sano jarjaray oodkaca ilaa la igu magac daro oo la yiraahdo hooyadii oodkaca mama yiri yaa la yiraahdo yani hooyadii oodkaca weeyaan 20 sano ka shaqeynay inta kale ee magaalada joogtana ana baray leedahay Allah ku barakeeyo gacantaadana Allah ku barakeeyo caafimaadna Allah ku siiyo meesha soo bisada looga ilaaliyaa سؤال مدام عاود ماشي اسكي استاك مدام meesha kuleel badana waa wax lagu tala galay miya hilibka dhaqso lagu angijinaya waa lagu qalajin halkan waa warshad yar oo runtii lagu wax la joogi kara maaha waxaad moodaaba jahannamaad moodaa biyaha siday 80 iyo ka koro way 80 iyo centigrade ka koro subxaan allah runtii aad iyo aad bay u adag tahay hilibka waxaa loogu talagalay export ilaa iyo UK malkas inuu tago واو كالي إيمو يعني إكسبورت ولا دوفينا هالبان waxaa la rabaa in halka lagu hagaajiyo marka gasacyo lagu rido oo laga soo helo maxay America iyo Canada iyo meesha Soomaaliya oo tacaano in oodka meeshooda lagu geeyo la doonaya مش maxay sida uu kula shay laakiin meesha waxay u kala hilibka angajinaysa way qalajin markay qalajinta gudaha la gelin machine baa la gelin way jarjari kadibna waa la karin markaas ka bacdi ka saacada iyo wax baa lagu shubay supermarket-ka la geeyay runtii meel taagnaan kara ma aha waa meeqa centigrade 80 waa ka sareysaa 100 waxa way centigrade hata waxa way 70 meelaha 70 ilaa 80 waa okay waa gartay wax walba waa aragtaan qalab sida loogu diyaariyay gabdhuhu hadday jarjarayaan halkana la keenaya mishiinta in yar bay ku angijinaysaa kadib waa la geynayaa waa la jarjarayaa waa la karinayaa waa la qasacadaynayaa kadibna supermarket-da la geenayaa marka waxaan rabaa inay America iyo Soomaaliya ugu tagtay qurbay ugu tagtay hilibka Allahu akbar Allah waa aad iyo aad wanaagsan waa horumar runtii meesha waa exactly okay haduu ilaahay laakiin diyaari ka dhigtaan waa rajaynaysaa goor باذن الله تعالى جزاك الله income generating